madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka xildhibaanada labada gole ee federaalka odayaasha hooyooyinka gabdhaha coronavirus hana dhaafi ilaahay hanaga bootiye ma xamili karno dad waxaa aan nahay dad aad iyo aad u dayacan marka ilaahay marka hore waxaan leeyahay ilaahay una booti marka labaad waxaan leeyahay galmudug sanado badan bay jirtaa maantay intii cadaada lagu dhisay waxay maraysaa 4 sano iyo bar 4 sano iyo barka ama waa muddo 5 sano dhow asaan isleeyahay anigu intii aan xilka hayay runtii dhib badan baan la kulmay aan la kulmay midda dabiiciga iyo midda ummaddu u geystaa badnayd أحمد غورون الله كبدبادي قال مدوك وقول كالصومالي وغريسان أنا هدف كي يومر كان معنا هذه وقال بانكاهي قال مدوك يوحكو عاصم هدف كي يوحو أها بلغادة إلى الفيديو إلى النبض الراديو إلى الدكتة ديسو إلى الشدة ديسو إلى الحوريو ميلا الله يسو لكن ويسو تقدوين أصلاً الله يقول لي أنت كهر في الإثنين هذا قال خيال شوقي وإحنا هذا حسوستي ورواه مديسي مكان قويني سامر كلامسين وهم مديسي وراه مديسي حتى مكان قويني سامرسين إذا اللي حاسين ما شفتوا قال إنه ما دحقين مسلم كلام إنه ما دحقين فدران إنه ما دحقين أنا وضع هذا اللي ولي ayada oo aan xujo lahayn ayaan baawur soo qaato u yimid Allah ku xiriiriyay saar u lisay inuu uga hambeeyo galmudug waa taacdaada lagu dhisay ka bacdina 44 caruur ay qalay caruurtii إلهي كمان إنه جوك والد كذا احترامنا سيحون بيقولوا قبل هذا كبعد ورسي في عرونا قبل حد قدم به إلهي لا أولاد في عرونا اللي حد قدم به وأنا روح لها قال مذوق وقول آدي ضفي عن أقول نصيب بدن ورنتي dadkii isagu baa dayacay mooyee waa wax aad iyo aad u sahlan in la hore loo mariyaa hore uu marayaa ka tagi maayo anugu xildhibaanada senatarradii hore uu kii ka tago ii yimow aan meesha u fariisano meesha bahasha dhisaya haddana waxay isku dhibanayaan soo laabataan aniga iyo yimaada taasaa idin fiican dekada waa dhisaynaa jidadkana waa dhisaynaa macaadintana waa la soo baxaynaa batroolkana waa la soo baxaynaa sidaa ku seexda oo kusoo toosa waa ku dadaalaynaa nafya shaydaan baan la dirinaynaa ilaahayna waa noo keenayaa maaragtay sharikada iyo dad fiican oo noo qoda shidaalladeeda iyo macaadinteeda waxa iyagana waa ku shaqaysanaynaa dhabarkaan u dhigaynaa waa ka tegi mayno waa joogaynaa ama baadiye ha ahaatee ama beled ha ahaatee galmudug qofkii ka tagow kuma ficna inaad kusoo laabata haddii kale aan wada joogin aan joogna kulligeena joogna laga bilaabo caawa qolada xamar joogto madaxweynaha ra'iisul wasaaraha labada waa reer galmudug ala ilmu ayana systemkii bedelo galmudug roonaado ma idaa roonay intaan joogay oo roonadan leh Soomaalida waxay tiraahdaa xujo ma falantay xaaja falantay أنا waxaan isleeyahay haddii aan isxujay oo u roonaano waa kuwaas u roonaadaan oo qoladan laftooda joogta galmudug 4 sano la soo dhaafay $100 milyan oo ay leedahay ayaa doolar iski ku laabtay ama gobol kale la siiyay qof walba ogow waxaan leeyahay sanadka walgii inta shirtaan ma istiraadaan waraa xoolihii dalkiina xoolihii gobolkiina Ismaaciil ورمضان قابلوا يدين هالتاك آدي وفكر
شديد كان لعقته دي الله ما حيو أنتي وجودة بيسوي لحظة كيلومترين ميل كان لسيانو مرينا برا اللي كيانو مرينا هذه لسان والرادية حقوق دي يحقق قبل كلها رادية أو international community رادية أو الدولة اللي حكت رادية أو وصو قرابة قبل إلى الكرسي كسر دورتان كان يوصل رجليني دي ملابطة دي مفكرة هذا السنة كان كرسي وحلا سينا يا لحظة بلاد اللي ارتدي سواء قرابته أو حكيمته هي كرسي كان يا شعبه ما يمغليسان يقبضوا ما يمغليسان إلى بين كل شيء كان وحكيني سيد بلاد حرتي يودي بصور العمل أحمد غور روح الله أحمد الجوال رجعها قوكملي أنا ضبطان كمان يا رجعها هي كاب حسن يا تجي معي وشوقيا وحرينا ونبضينا ونسينا قول كذا كتجي مني وشوقيا أنا المسؤولية ده قاعد عايزه قيدك يودين شنو ويكرتك يا وايد بيانه يا ودي أيده هي راني سود هذا أحمد كسود ميكروفونك ومضى هذا يدرك عاوي حل مع كسارن وحل قلص مودي إنه فدودي هاي ودروع دقي هذول ربا ملح وكخراري هاي لكن إن ضوء كيستها مهمة إن ضوء سمرتها مهمة inaad u samirto ayaa aad iyo aad u muhiima inaad dadkaaga isla fahansato oo sanatarada iyo xildhibaanada federaalka intaysan hadda tegin inta meel la gashay ballama waxaan shaqana u dir haddii kale aday kaa shaqaynayaan walilah baa idinku dhaarshay aan u shaqayno gobolka aan waxba iska dayna waxa kalena aan iska xoorno kulligeen waa dhargaynaa كان شباب كويس وحرينا دكتور وفرينا هبين قال كأيان كسر صعود 5 ساعة ونص صعود 5 ساعات ساعات يا فرد من الموسم صعود شيء شتى بروح هذا السحر كوا كان وسطنا إنها ما يقعنا حتى كوا مجالين كتشوا ما يقعنا بتبير بقول هل كيلومتر مثلا ينكران صوت وحوي وعي قريب يقوم بهاي أنا وكنت لك شرايين وعي قليل نصيب ضر وقت ما وايقف عليه هذا إيه يرقى قرعين سكري هذا أنت نوعي مويه هل كيلومتر وكله إلا والله جب خير. بل يرى قبلها إذا ماذا قلب كسيدة بعد صحافة أنت ما على غصة قيب قلي مناصرة ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب إلهي سبحانه وتعالى هذا ما أنت له نصور تجلي فرصة يو حول مهم إن النوجو قبصانته بدك كوان هذا النهاية رجل بدو تا إلهي معكم هاتسن رنتي وحن لا هاي وهبين تاريخ ذا الجلمدو كجلي أما كجلي يبال ذهبه عاون سيده هر الله وضح حصي وعن هل كان رواينا رنتي فرصد أصدقائي كاني أما كشقيي دمان تودقهم هالعليو وعن رواينا نسيقى روح الصوف مدحويني هراء الجلمدو وهالك أحمد عالج الحاف تنسل كي ولا النمادي أوضة النمادي وأموتشي خير قلمدو سيدو الشاقي وأوضح هذا المي إيضو أن رونان إيو التوريس إينا أن قلمدو لا ترى وحارهين كل حجرين أيان اسكو ترسلني اسنا أقبلني وأضي قلمدو وبه قلمدو وننتي تاريخ حسن دونتا
hawshii uu soo qabtay oo ay ka mid tahay isu imaad galmudug la isugu keena caasimadeeda inuu dibadda u aasay Axmed Ducaale Geelle guushaas taariikhiga ah ee ay galmudug heshay waxaa sidoo kale ka qayb galay madax fara badan mas'uuliyiin badan odayaal salaadiin culimaadudiin qaybaha kala duwan ee bulshada intii ka qayb gashay dhammaantiin sidaas oo kale aan idin mahad celinaynaa walaalayaal adduunka markii doorasho ay dhacdo meel kastoo la joogo doorashadu waxay keentaa kala duwanaansho waxay keentaa kala qaybsanaan mararka qaar waxay dhammaataa markii doorashadu dhammaato waxaa loo wada tanasulaa ama la isugu yimaadaa danta iyo horumarka dalka haddii doorashadii isriix yar ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanasuleen horumarka iyo hor socodka dalkooda iyo dadkooda marka xogaagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isriixay dhammaanteen caawa waxaan nahay mid waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay waxaa bilow noo ah oo aan gudagelaynaa haddii la yidhaahdo dib u heshiisiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan Soomaaliya ka soo jireen gaar ahaan galmudug ka jiraan shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa waana laga wada hadlay waana noo qorshaysan tahay qayb ka midana waa soo qabsoontay sida huurshe iyo xaraale oo caaway nabad buuxda aan uga fadhino haddii la yidhaahdo howlaha hortawinta leh waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii ilaa yidhaahdo dhismaha hay-adihii dowladda galmudug waxaa qorsheenu yahay hay-ado adag tayo leh ammaano leh galmudug meeshay u socota gaarsiiya inaan usoo dhisno haddii ilaa yidhaahdo hay-adahaas waxaa kasoo qayb geli doona ama kasoo mid noqon doona dad nafti horayaal ah astaahila inay galmudug ka gudbiyaan ama ay gaarsiiyaan hadafkeedii ujeedadeeda haddii la yidhaahdo dad badan oo laga yaabo inaadnan caawa u malaynayn ayaa hoggaanka kasoo qayb geli doona aanan ku kalsoonnahay inay nala xaqiijin doonaan hadafka iyo ujeeddada aan leenahay haddii la yidhaahdo waxaan rabaa halkaa inaan fariin uga diro dhammaan dadka reer galmudug meel kastay joogaan walaalayaal waxaa noo ballana midnimo wadajir iyo isku tashi meel kastood joogtaan waa isku filannahay wax badan baan qabsan karnaa wax reer galmudug haystaan iyo Soomaali meesheed ugu jiraana waa la og yahay waxaan la soo baxaynaa kartidii iyo dadnimadii iyo tiir dhaxadnimadii lagu yaqaanay reer galmudug meel kastoo joogno gacmaha aan isqabsanayna insha Allah sidii madaxweyne Axmed Ducaale sheegay dekadahan dhisanaynaa airportadaan dhisanaynaa jidadkaan dhisanaynaa kaalmadii kale iyo cidii kale waxaan ugu taraysan helnana waa helaynaa isku tashi si buuxana waxaan leeyahay ku talagala u soo istaaga gacmahana isqabsada wax walbaan gaaraynaa waqti kooban gudihiisa hadii la yidhaahdo
sidoo kale sida la sheegay ama horeba ballanqaadyadeenni u ahaayeen ilaahay idankii taako ka mida galmudug cadowga argagixisada ah ma haysan doonaan mana dulaysan doonaan kumana sii daahi doonaan waana howlgalaynaa waana u howlgalnay sidii xildhibaan axmed macalin fiqi sheegay saasay u dhahan tahay inay haddaba sii toosiyaan waa yaqaanin reer galmudug dowladda galmudug waxay u taagan tahay hadafkeedu yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo xoogaynta iyo xoojinta dowladda dhexe ee Soomaaliya reer galmudug uma diyaarsana kamana fakarayaan in Soomaaliya qayb ka mid ah fiicnaan karto qayb ka mid ah xumaan karto waa la wada fiicnaan karaa oo waa la wada toosi karaa oo dowladda dhexe hadday xoogaysan tahay oo ay ku wada kalsoonahay ayay dowlad goboleedyaduna xoog leeyihiin shaqada laga rabana qaban karaan waxaan ku kalsoonahay qabnaa midnimo wadajir dowladnimo iskaashi marna kama fakarayno qalalaaso iyo khilaaf waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood haddana reer galmudug qabadkeedna waa leenahay isu keenisteeda fikirkeedii kartiyeedana waa leenahay dowlad jacayl iyo midnimo jacayl Soomaaliyeedna waa la ku yaqaan marka walaalihii ama maamuladii iyo dowladda federaalka ee wax ka dhex jiraan diyaar baan u nahay inaan idii la yiraahdo hawshaas galno kalsoonina ku qabnaa inaan guul ka keeni karno taasna waa hadafkanaga oo aan leenahay gogosha waliba waxaan dhigaynaa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb hadii la yiraahdo anaga gacmeenu waa dhaqan yihiin cidna khilaaf nagalama dhexeeyo dowlad goboleedyada dhammaantood wax nagalama dhexeeyaan dhiba kuwa aan dariska nahay oo wadaagta nahay wax nagalama dhexeeyaan dulqaadkanagana waa la tijaabiyo waad ogtiin dhowr jeer in meelana la ka xagtay oo cid oo jawaabin qolo meelo kale u socotaa nasiib martay na soo martay wax nagu dhifatay annagu marna uma jawaabin waliba madaxdeennada iyo xildhibaanadeenada iyo mas'uuliyiinteena dhammaan iyo siyaasiyiinteena waxaan isku waraysanay oon ka reebnay in meelaha qaarkood jawaabaha ay mudan yihiin laga baxsho sidaa darteed innagaa ugu habboon cid gobol dhigta Soomaali isu keenta khilaafkana bixisa marka qolooyinkii istaataabtay oo isma xallin kartaane gogosha Dhuusamareeb taal oo tijaabadeedii reer galmudug 60 cisho ka yar wixii khilaaf iyo qalalaas lagu ogaa ku dhamaysay tan kalena waa ka dhowdaay reer galmudug la xama jiray soo diyaar garoow gogosha waa diyaar qolooyinka hadda wax naga sisi naga yihiin iyo qoladiina taabatayna waxagiina jiraa ma jiraan hadda istoosiya wada ganacsi isu socosho hawl wanaagsan Soomaali mid ah wada jir aan ka wada shaqeyno waliba madax walaalahay ah maraba inaan hadda hebel iraadee oo wax dagaal badan ku jiro dagaalka yuusan meelo badan la gelin dagaalku yuusan meelo badan taaban intaas hal lagu siro waxyaabaha labada dowladeed iyo dowlad goboleed iyo dowladaha dariska kala dhex jirana si nabada walaalnimo ah xasilooniya ku dayasho leh aan ku xalino oo ku dhamayno
waxaan rabaa inaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celiyo dhammaan reer galmudug meel ay joogaanba taageerada iyo isgarabtaagga iyo gacanta aad noo muujiseen iyo sida aad ugu heelanadeen oo ugu heelan tihiin heshiiska iyo nabadda iyo dhammaynta khilaafyadii galmudug dhexdeeda ka jiray oo siyaasadeed midka bulshana gacan nagu siiya insha allahu tacaala intii gacan ka geysatayna si gaaraan ugu mahad celinaynaa madaxweyne axmed ducaale nabadoon baa tahay saacaddaa laga bilaabo odayga dib u heshiisiinta midda bulsho ayaa tahay hadii la yidhaha waa lagugu hubiyey lagu dhaafi maayo ciddaa tiraa igu darna waa lagugu daraya hadii la yidhahdo aniga qolo dambe dad aragto oo meelaha wax iska qabta xataa odayda iga tahay anaa ka duqadhe aad iyo aad mahadsan tihiin galmudug mid ah galmudug waacas u bariyey galmudug ay caawa u tahay habeen taariikhiya xildhibaan baxaya iyo siyaasi inta ka tago axmed ducaale ku soo doonaya ma jire waa la joogayaa ballanqaadkaasna waa la baxshay howlo waaweyn oo la malaynayna waa qaban doonaan hadii la yidhaah guul ayaa noo ballana iyo inaan gaarna dhaqso meeshaan u soconno biidni illaahi tacaala aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu